xabadda ama baabuurka uu Soomaali wato Soomaali jiira iyo baabuurka uu Ugandese darawal ka yaho Soomaali jiira waa accident labaduba waxa weeye waa dil oo midna ma aha xalaal midna xaraan ma aha oo amisom ajnabi nin ah oo Soomaaliya jooga ayaa wiil dardaray in issue intaas laga dhigo waxa weeye baabuur baa dardaray qof oo bini aadam ah ma garad kana insaan way bini aadam ah baabuur ku waday waxa dhintayna waa qof insaan ah way oo issue-ga oo inta looga dhigaya idinkoo Soomaali ah baa dad Kenyaatiga ku dardartaan halka tobanka qofkii baska gaariga lagu mariyay sida idin saameysay ku geeriyooday arrintaas waxa weeye waa specific incident ma garad waxa weeye waxaan ku sheegayo weeyaan oo aan ku leeyahay baabuur oo ay dad waxa weeye Kenya u dhashay ay saaran yihiin hadduu nin Soomaaliya gadiyo waxaan oo war ah ma dhacdeen so why it's yani ay the issue u tahay nin oo ajnabi ah ayaa Soomaaliya dambi ku galay marka qof ajnabi ah ayaa khalad sameeyay buunbuunintaasi it's playing into the hands of Al-Shabaab waxa weeye waa arrin Al-Shabaab u danaynaya oo waxay ayagu sameynayaan ka dhigaya wax caadi ah waa Soomaali waa inuu maanta hotel dayax ay qarxiyeen oo 40 qof ku dileen bagarad caadi ka dhigaysa laakiin se hadduu nin oo Uganda ka yimid baabuur waday oo ari arbeed dardaro idinkoo dhan idinka wada dambe shalay ayuu gaari ka mid ahaa kolonyo gaadiidka Amisom oo marayay isgoyska kilomitir 4 ee Muqdisho waxa uu jiiray gaari nooca raaxada uu watay muwaadin dhalinyaro Soomaaliyeed oo marayay wadadaasi dad goobjoogayaal ayaa telefishinka Universal u sheegay in gaariga ciidamada Amisom afka hore uu ku jiiday gaariga ninka dhalinyarada uu watay isaga oo ku dhex jira ilaa markii dambe uu ninkii gaariga iska tuuro kadib markii uu ka cabsaday inay dulmaraan